waxaa ka qabsoomayay aqalka baarlamaanka ee House of the Parliament ee wadankan Ingiriiska magaalada London shir ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada reer Somaliland oo ay ka soo qayb galayeen xildhibaano ka tirsan xisbiga Labour-ka kaasoo gali doona doorashada bisha shanaad ee sanadkan soo socda waxaana community-yadii reer Somaliland ee shirkan ka soo qayb galay kamid ahaa safiiro iyo waliba maamulada sare ee jaaliyadaha ee wadankan ku dhaqan haddaba shirkaasi iyo sidii u dhacay halkan waxay gula sugan Stephen Dant oo ah MP ama xildhibaan ka tirsan xisbiga Labour-ka ee wadankan Ingiriiska waxaanu wax ka ogaan doonaa wax ka weydiin doonaa shirkii iyo sidii u dhacay hello Stephen, thank you very much for your time. I just want to ask you, how did the meeting went? I think we had a very positive meeting this evening. We had a number of MPs from across the UK from the Labour Party listening to representatives of the Somaliland community across the UK and also representatives of the government and a minister. And we were also joined by Gareth Thomas, Labour's Shadow Minister for Africa, and I think the meeting was very productive. I think the community made very, very clear their concerns about centrally about recognition for Somaliland, but also about a whole series of other issues and the importance of an incoming Labour government supporting Somaliland's cause. Certainly from my own perspective, I have long been a supporter of Somaliland's recognition, and I have pledged along with many of my colleagues to do what we can in Parliament if re-elected to ensure that happens. Cabdiraxmaan waxa uu kamid ahaa community-yadii sida firfircoon soo abaabulay dhanka Somaliland community-ga inay shirkan ka soo qayb galaan isla goobtana ku sugnaa shirkana ka qayb galay Cabdiraxmaan shirku sidoo u dhacay sida arkaysa waxa ka soo qayb galay shirka MP kamid ah Labour Party-ga oo had iyo jeer u ololeeya qadiyada Somaliland aad baa loo wada hadlay waxa laga wada hadlay sidii qadiyada Somaliland loo taageeri lahaa waxa laga wada hadlay oo ay community weydiiyeen MP-yada Labour-ka halka ay ka taagan yihiin qadiyada Somaliland iyo waxa ay hadii ay doorashada helaan ay ku darsanayaan hadii la hay ka dhig sidee buu ahaa shirku qaabkee buu soo dhacay maxaad safilaysaa inay muhiim uga tahay reer Somaliland بسم الله شركة وحود عيسى وعم بقول وحنو يمي تدعي هذا مهمة وكسر دولة بريطن وحكاها لين قضية الصومالي لان يقاب كي أي وحقوها جاج لهاين هذا نضد كاركن شغلنا هاي الصومالي لان نقول شيء عنه هاي بريطن also درشة هذا هايستا وحنادي هذا سود ويني وحنا نقرأ لين وها هرمركا أي قاعدي ودنكو سدا وقاب كوس عضو في عن قنصلك Somaliland baan ku xigsiinaya markaad eegtay nuxurka shirkiga wixii ka soo baxay maxaad fariin u dirleed reer Somaliland bismillaahir rahmaanir rahiim horta Somaliland waa inay hayn walwalin absolutely hay walwalin Ingiriiska waxay ka haystaan maxay haydanay taageero buuxda oo ah from MB to public iyo to government ba taageero buuxda ay Ingiriisku سينا يا فريلاتن كسر Somaliland. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan marka hore mahadnaqayaa dhammaan jaaliyada reer Somaliland ee geesiyaasha ee ka soo qayb galay xafladan ama muxaashirkan soo abaabulay waxa uu arintii shir aad muhiim ah shir si wanaagsan muxuu ahay loo qadiyada Somaliland laga wada hadlay shir wado u furi doona insha Allah mustaqbalka shirar kale waxaan filayaa inuu ahaa shir aad iyo aad muhiim uga qarankeena oo guul ah aad iyo barakaad marka xiga waxaan aad u mahadnaqayaa Somaliland community-ga London iyo UK oo dhan wada degan sida ay active-ka uga qayb qaateen arintan maanta dhacday ee ay wadaan aad baan ugu mahadnaqayaa dhamaantiin ragaareerahayga jooga iyo intii igu horeysay hadashayba waxaan u lahaa Somaliland sidii aan shirkiiba aan ka sheegnay in horta marka ugu horeysa ay sijilaan in ay foodkooda bixiyaan xisbiga Labour-ka iyo qoladii aanu maanta la shirnay parliamentarians-ka waxaan u sheegnay in codka reer Somaliland aanu noqon doonin mid ay u qaataan xisbiga Labour-ka ama xisbi waliba for grant in Somaliland waa bishaaro banday telefishinka qaranka Somaliland magaalada